بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم، كل عام وأنتم بألف خير. أسأل الله أن يتقبل صالح الأعمال منا ومنكم جميعا. waxaan oran lahaa qof walba Soomaaliyeed iyo dhammaan ummadda muslimka ah Ramadaan wanaagsan iyo bil barakaysan. bisha Ramadaan waa bil barakaysan. qof walba oo muslimana ay tahay inuu soomo, cibaadaysto, ilaahayna uu ugu dhowaado acmaasha teeda wanaagsan. waa bil ay tahay inaan badino akhriska quraanka, kitaabka quraanka ee kariimka. waa bil ay tahay ummadda Soomaaliyeed waa inteeda badani quraanka waa taqaanaa, laakiin haddana adduunyadii ayaa kasoo dhex gasha oo qof walba nolol maalmeedkiisa ayaa waxaa laga yaabaa inuu qasbo inuu xogaa quraankii ka yara zagzaago. marka waa bil ay mudan tahay in qofkii xogaa khaasatan inta quraanka taqaana in ay bisha Ramadaan ay quraankii dib u soo celiyaan oo quraan akhriskii ay badiyaan. waxay ahayd kitaabka quraanka kariimka inuu inagu filaado inagoyna wax kale u baahanin, laakiin haddana isla roga adduunka iyo inagoo daran yahay fahamkii diinta ayaa waxay keeneen inaan kitaabka quraanka ka tagno nolosheenii iyo ummaddii Soomaaliyeedna maanta meesha ay taagan tahay ay u sabab noqoto. walaalayaal, ummadda Soomaaliyeed waa ummad soo martay ilaa iminkana ku jirta dhibaatooyin aad u fara badan, ayna ugu daran tahay waqtiyada Ramadaanka ah. ayna ugu sii daran yihiin ummadda Soomaaliyeed inteeda taagta daran oo 70% laga yaabo ummadda Soomaaliyeed inay lagu tiriyo dadka taagta daran ama aan awoodi karin in ay helaan cunno iska badbaadno nafaqaysan ayaga iyo caruurtoodu. marka bisha Ramadaani waa bil ummadda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ay taag darideedu soo baxdo. haba ahaatee bishan waxaa kusii kordhay dhibaatooyin aad u fara badan. waa abaaraha oo waxaa maxay geeska Afrika dhulka Soomaalidu degto aad uga taagan abaaro ay sababeen teeda badani climate change ama isbedelka cimilada, oo ummad aad u fara badan ayaa dhibaatooyin gaajo iyo macluul ay soo waajahayaan, xoolahoodiina ay aad uga dhammaadeen oo weliba dadka miyiga ah ay ku tirsan yihiin. qodobka labaad ee sababaya kasii daridda wadciga ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan dunida intooda taagta daran waxaa ka mid a maxay hayday sicir bararka, oo inta la socoto mooyaane sicir bararku adduunka iminka wuxuu marayaa CPI ama Consumer Price Index oo lagu qiyaaso inta isbedbedesho maciishadu ama ay korodho. wuxuu marayaa 40 sano tii ugu sarreysay, oo taa waa garan kartaa waxaa ka dhalanaya qofkii in wixii uu mataqaanaa ay laga yaabo uu $1 ku iibsan jiray inay noqotaan $1. marka taasina waxay keenaysaa sicir bararku in noloshii ay qaaliyoodo. dee kolba ummadda inteeda taag daranna dhibaatadu kusii badnaanaysaa. qodobka saddexaad weliba iminka United Nationku qaybteeda cunnada adduunka ee aad uga walwalaysay Soomaaliya humanitarian waxaa weeyaan dagaalka ka socda Ukraine ama maxay ahayd u dhexeeya Ukraine iyo Russia oo sababaya in uu khalkhal geliyo ama ay dhici weyso in la helo maxay ahayd qamandidii ka baxda Ukraine ama dhulkan inta badan Soviet Union isku ahaa Ukraine iyo Russia. waa dhul aad iyo aad I think 20% qamandida adduunka ayaa kasoo baxda. marka United Nationkuna waa dadka waxay kasoo iibsadaan wadamadaas si hadhowdii ay dib ugu sii qaybiyaan
wadamada ay ka jiraan wadamada taagti daran oo Soomaaliya ay ka tahay. marka walaalayaal ramadaanku waa bil wanaagsan barakaysan laakiin haddana dhibaatooyin mataqaanaa maciisho oo fara badan ummadda Soomaaliyeed ku leh. ramadaankan bidaatna uu kasii daran yahay kuwoodii horeeto. marka walaalayaal waxaan mudnayn in haddii dowladda jiri lahayd oo cadaalad ay ka jiri lahayd iyo nidaam system waxaanay inta badan ma dhici lahayn baan u maybeyn anigu maanta soo fadhiisto oon ka hadlo Soomaaliya dhibaatadeeda. laakiin haddana ummadda Soomaaliyeed waqtiyadeedii ugu dambeysay waxay isu bedeysay more like individualistic approach in qof walba ay wuxuu kari karooto uu sameeyo. intaas ayaanu kusoo badbaadnay maca Allah. marka in qof walba ay wixii kari karo uu sameeyo oo wixii uu mucaawino geysan karo ama saaciidad u geysan karo uu saacido. bishan Ramadaan walaalayaal ayaan dadkaas waxa sida ay yihiin lagu dhowran. qof walba wixii uu geysan karo yuusan maxay ahayday ka gaabsanin. waxaan kaloo rabay oo xalay dabkii ka kacay magaalada Hargeysa oo dad aad u fara badan oo nolol maalmeedkooda ka soo saaran jiray ama ganacsiyadooda halkaa ku lahaana aad ay ka burbureen. aad ayaan uga xumahay. waxaan rajaynayaa in maxay ahayday ummadda reer Somaliland ay gacmaha isqabsan doonaan ayna u gurman doonaan dadkaasi ay dhibaatadu gaadhay. walaalayaal taasi waxay caddaynaysaa kow dabkii wax ka qabasho la'aantaasi waxay caddaynaysaa systemka iyo nidaamka meesha ka jira taag darradiisa iyo maxay ahayd cadaalad darradiisa iyo inaysan diyaar u ahayn. waa suuqii ugu weynaa Somaliland I think waana suuqa magaalada Hargeysa waa macnaha wax duntii. marka haddii taqriiban dabkii iski ayuu u damay suuqa intiisa badan uu galaaftay. marka taas waxay keenaysaa Soomaalidu meel walba ay joogto in systemkeedu uu yahay system aad u liita daciifa wax allaale wax oo mataqaanaa faa'iido ah oo ummadda Soomaaliyeed u hayana aysan jirin. marka taas waa midaas. laakiin haddana dadka ku dhibaatoobay waxaan mudanahay in loo gargaaro qof walbana wixii uu qaban karo ama dadaalaha kulli soo bixi doona in mataqaanaa gacan laga geysto oo wixii mucaawinaa qof walba uu geysan karo la geysto. haddii ayna isu naxariisan ummadda Soomaaliyeed waxyaalaha kaliya aan mataqaanaa ku wanaagsannahay waxaa laga yaabaa inay waana jiraan akiid waxyaalo kale ku wanaagsannahay laakiin ummadda Soomaaliyeed waa dad isgargaara oo maxay ahayday isgarab qabta. marka walaalayaal ummadda walaalaheena maxay ahayday ku hanti waayay dabka ka kacay magaalada Hargeysa aynu u kaalmayno aynu maxay ahayday u ducayno. والله waa aad iyo aad looga xumaado bishan Ramadaan maxay ahayday habeenkeedii inay ummadaas waxa ku koobsan. laakiin haddana Ilaahiga abuurtay waa ka warhayaa. waxaan rajaynayaa in Ilaahay badal khayr qaba siin doono sida uu degdegsiyaha badan. intaas ayaan rabaa walaalayaal inaan dhaho xogaa waxaad moodaa hadalku inuu ila dheeraaday. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.